askinuuhunna dejiya dumarka min xayثu sakantum meesha aad degan tihiin idinka ama aad degaysaan oo min wujdikum awooddiinu ay tahay aw raggii dumarkii kala maqnaa xagguu jiraa wuu soo shaqaynaa war ha ii soo shaqaynina ii imow agteeda ku shaqeey bur iyo bariis bannaanka inta aan dhigano nyaanyo aan ku googoobayno soo kama fiicna oo inta muufada iyo markbilaashka laysla cuno habeenkii dejiya meeshaad degaysaan oo min wujdikum awooddiinu ay tahay 7 sano maanan arkin bay leedahay subxaanaka yaa ilaahay 8 sano u k buu ku dhumay war iyo wacaad lagama hayo taleefonna maba qabtay wuu damiyey afrikay joogtaa dhib iyo rafaad mashaakil walaalayaal isla joogiddaa muhiim ah lagana maarmaan ah inta la kari kara in laisla deganaado ha laisla deganaado aayaddu qaar waxay yidhaahdeen waa gabdhihii la furay qaarna waxay dhaheen waa caamoo waa nin iyo naag dhammaan ninka markuu askari yahay waa la bedeli jiray soomaa ballanbal iyo goldogob iyo meelahaasaa loo bedeli jiray marka la bedelo waa inuu kaxaysta inan naagtiisa ee meel allaala meesha uu joogo uu markaa geysto waayo haddii kale dhibaata imaanaysa intuu baxaa meel loo bedela tubuu ku guursanayaa tii waa la hilmaamayaa waray ayaa loo sii wadayaa tu kaleu kusii guursan tii kale labay noqona inta laga maqan yahay waa la sii bedelayaa saa darteed waxaa wanaagsan dumarka meesha aad degaysaan oo awooddiinu ay tahay inay idinla degaan aqal soomaali haddaad wada degtaan waa nabad iyo caano in asagana villooyinka ku yaala wadamada yurub uu ku raaxaysto ayadoona ay mugdiga africa iska mutaqaanaa joogto gabadha suuragal ma aha ama mugdiga wada imaada ama iftiinka gey gabadha saa darteed buu ilaah leeyahay askinuuhunna dejiya dumarka min xayثu sakantum meeshaad idinka degan tihiin ama aad degaysaan oo min wujdikum awooddiinu ay tahay qasab maa kuguma aha inaad villooyin u dhisto qasab naguma ah inaan cimaarooyin dhisno inta awooddeenu ay tahay iyo inta aan kari karno yaan meel dejinaynaa xaaladdu waa sidaa walaa tudaaruuhunna hana dhibina dumarka litudayiquu calayhina saad dushooda u ciriirisaan ragga gobolka mid ah asagoo lacag haysta oo hanti haystaoo guri u iibin kara yuusan u iibinaynin waa mamnuuc ha ciriirinina dumarka asagoo biil bixin kara ayuusan siinayn intaa wuxuu rabaa cadaadis inuu gabadha ku cadaadiyo meherkeedaa 5 kun ahaayo ifur waa ku fura hadduu dhaho soo meher lagama rabo tii wuu diidan yahay markaasuu cadaadinayaa markaasuu dhibayaa markaasuu wax kasta oo ciryiri ah oo mararka gobolka mida dumarku waxay ku kalifaysaa inay dhahaan war meherna kaama raba iska keedaadhisoon heerkaa ha gaarsiinina dhibaato heerkaasi dayiq heerkaas ha gaarsiinina dumarka walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna wain kunna haddii ay yihiin waa dumarkii la furay ulaati xamlin kuwa uur u saaxiib ah hadday yihiin dumarkii ulaati xamlin kuwa uur u saaxiib ah oo uur baa lagu furay fa anfiquu calayhinna ku nafaqeeya dushooda xataa yadacna xamlahunna ilaa ay ka dhalayaan ilaa ay ka dhasho nafaqadii xamliga ayay leedahay gabadha marka 3 dalqa ay u dhammaato ma laha sakni iyo nafaqasaan soo tilmaanay soo ma aha laakiin uur bay leedahay ka warrama 3 dalqana way dhammaatay ajasheedu waa ilaa ay ka dhasho soo ma aha sidaa darteed ayaa ciddadeedu ay tahay ilaa ay ka dhasho saknina ma laha mana laha laakiin uurkii bay ku helaysaa markaa uurkii baa lagu nafaqaynayaa wa in kunna ulaati xamlin aan ka dhigna kuwa 3 dalqa lagu furay waayo haddii gabadha uur ay leedahay maca daalika dalqooyinkeeda 1 ama 2 ay tahay saknana way leedahay nafaqana way leedahay taa caadiba meel bay u saaran tahay amaa gabadhaan 3 dalqa lagu furay oo sakinkana aan lahayn guri nafaqana aan lahayn hadday uur leedahay ka warran hadday uur leedahay uurka lagu nafaqaynayaa wa in kunna haddii ay yihiin dumarkii la furay ulaati xamlin kuwa uur u saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya calayhinna dushooda ku nafaqeeya ilaa goormee xataa yadacna xamlahunna ilaa uurkay ka dejinayaan ilaa ay ka dhasho macnaha waayo hadday dhasho nin kale guursanaysaa waa u dhammaatay ciddadii waad ka joojinaysaa maxaa soo haray cunugii haddaa la dhalay soor iyo beriisna cuni maayo muxuu u baahan yahay naaskii hooyso ma aha tii buu ilaahay ka hadlayaa marka fa in ardacna lakum hadday idiin nuujinayaan haddana fa aatuuhunna ujuurahunna tii nafaqadii uurka markay dhashay way dhammaatay soo ma aha waxaa bilaabanaysa nafaqadii radaaca waa nugmada naaskeeda lagu siinayaa ee cunuga ay siinayso ujaro taasuu markaa ilaahay tilmaamayaa fa in ardacna hadday idiin nuujinayaan lakum adinkana fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ujuuradooda siiya
meherku waxaad siisaan ujuuradooda. macnaha ujradii ay ku nuujinayeen ciyaalka ayaa la siinayaa. meeqaa la siinaya? waa lagu heshiinayaa, waa lagu heshiinayaa. taa heshiiskii dhex mara ayay markaa tahay. waxaad tiri waxaan ku siinayaa intaasoo lacag ah, markaasay ku tiri way igu yar tahaye ii kordhi. ma kordhin karo. hoo cunugaaga qabso, qofkaad doonta u geyso, way ku dhihi kartaa. amase adaa markaa ugu daraya. fa in ardacna, hadday idiin nuujinayaan lakum adinka ilmihii laydiin dhalayna, fa aatuuhunna, siiya gabdhihii aad furteen oo ilmaha idiin nuujinayay, ujuurahunna, mushqaayadooda siiya. waa mushqaayad baa la yidhaahdaa. wa'tamiruu, ka tashada baynakum dhexdiina bimacruufin, si macruuf ah is-afgarta. walaal meeqaan ku siinaa? raatibka aan qaato waa iska yaryahay, mushaharkayga waa $1 keliya walaal. intaasi naa kalena waan qabaa, walaal $200 iga qaado. wa'tamiruu baynakum bimacruuf. walaalo 200 maxay taraysaa? waa ujeedaaye nafaqadii iyo caanihii waa qaali, shaahii waa qaali, sokortii waa qaali. wa'tamiruu baynakum bimacruuf, si macruuf ah. haya walaalo 50 iigu dar. walaal kuguma dari kare, 30 baan kugu daray. macruuf. wa'tamiruu baynakum bimacruuf. wain tacaasartum, haddaad isku cuslaataan oo aad iskeeni weysaan, gabadhii raalli kuma aha, kumana qanacsana inta aad adiga doonaysid inaad dhiibto, adigana intay ayadu doonaysa inaad dhiibto dooni maysa ama ma kari kartid. wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa, naa kale u nuujinaysaa. qaada canugaaga. gabadhan maskiinta ah lacag yar wax kuma nuujinayso. sicir barar baa jira, wax kasta way qaaliyoobeen, doolarkii wuu kacay soo maaha. saa darteed ayaa waxaa la leeyahay fasaturdicu, waxaa u nuujinaya cunugiisa lahu asaga ukhraa, naa kale. xagga radaacana saasay markaa noqonaysaa. liyunfiq, ha nafaqeeyo. ka wax qaba iyo ka furay labadaba. duu sacatin, kan hodantinimada u saaxiibka ah. duu sacatin, midka waasictinimada u saaxiibka ee taajirka ah, min sacatihi, sacadiisii taajirnimadiisa iyo wascinimada ilaahay siiyey waxa ka bixiyo. iska daa baqiilnimada. lacag badan baad haysataa, taajir baad tahay, ganacsadaad tahay, gabar cunugaaga kuu nuujinaysa aadba furtid, colaadba ha idinka dhexaysa haddii la doonee, dhaqaalay oo wanaaji, nafaqay, ha nafaqeeyo oo ha bixiyo. midka deeqda u saaxiibka ah, waasictinimada u saaxiibka ah, min sacatihi, waasictinimadiisa xaggeeda waxa ka bixiyo. waman qudira, qofkii la ciriiriyey, calayhi dushiisa lagu ciriiriyey risqow, risqigiisa wuu iska jeeb maran yahay, wax saasa ma haysto, maalin hel maalin waabuu ku jiraa. ninka xaaladiisu ay sidaa tahayna, falyunfiq, ha nafaqeeyo, ha bixiyo asagana mima aataahu allah, wixii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. haba yaraato galaas biiba ha ahaato, $1 ha ahaadee, gabadha yuusan ka xasdin, ha siiyo. laa yukallifu allahu, ilaahay kalifi maayo nafsa naf ilaa maa aataaha, waxay kari karta maahane. wixii ilaahay uu siiyey meehee, wax kaloo lagu kalifayaa ma jiro. sayajcalu allaahu, ilaahayna wuu yeeli doonaa, bacda cusrin, culayska bacdi, yusran, fudeed ba ahaan doona. maanta shaqamahayo waa baalgamuundo, wuxuu haystana ma laha. yusri baa iska imaan doono, ilaahay baa faraj u furi doona subxaana wa tacaala. ilaahayaa faraj u furi doona bacdamay xaaladdu sidaa taw culays kalis aan lagu jirayn. horaan u soo marnay, fa inna maca alcusri yusran, inna maca alcusri yusraa. culays fudeed baa ka dambeeya, culays haddana fudeed baa ka dambeeya. saa darteed dadkan culus oo aan waxaysanin, dumarow idinkuna ha ku nicina, oo beri baa ilahay wax u furi doona subxaana wa tacaala. ragga aan waxaysan idinkana ha qalbi jabina, oo waxa maanta ilaahay idin siiyey bixiya, waxba ha ka hakranina, beri baa ilaahay fudeed keeni doona subxaana wa tacaala. liyunfiq, ha nafaqeeyo duu sacatin, midka waasictinimada u saaxiibka ah, min sacatihi, waasictinimadiisa xaggeeda waxa ka nafaqeeyo. waman qudira calayhi, qofkii lagu ciriiriyey dushiisana risquhu, risqigiisa, falyunfiq, asagana ha bixiya mima aataahu allah, wixii ilaahay siiyey. laa yukallifu allahu nafsan, naf ilaahay kalifi maayo ilaa maa aataaha, waxay awooda maahane, waxay kari kartay la imaan karta maahane, wax kale lagu kalifi maayo. xataa cibaadadii baa sidaa ah. laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha, laha maa kasabat wa calayha maktasabat. istaag maku tukan kartid, fadhiiso. fadhi maku tukan kartid, jiifo. sakaatulfitri baa layska rabaa, ma haysid ilaa koombo badar maahane, kii baad bixinaysaa. sadaqaa layska rabaa, timir baad haysaa, bixi. 2 xabo bixi. macnaha shay kasta wuxuu ilaahay amrayaa, qofku wuxuu kari karo. sayajcalu allaahu, ilaahayna wuu yeeli doonaa bacda cusrin, culays kadib, yusran, fudayde. waka'ayin min qaryatin, qaryo badana, waka'ayin
badana oo badana min qaryatin qaryo xaggeeda. catad qaryada laftigeeda mee waa ehelkeedii. catad xadgudubtay oo madax adkaatay oo diiday can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa iyo wa rusulihi rusulkiisiiba. rusushiisii amarkoodiina diiday oo faxaasabnaahaa aan xisaabnay xisaaban xisaabtankaasoo shadiidan adag wacadabnaahaa aan cadaabnay aakhirana cadaaban cadaab nuqran oo xun oo la inkiro. fadaaqat waxay dhadhamisay wabaala amrihaa amarkeeda cirib xumidiisii. amarkii wixii ka soo baxee natiijo ah cisyaankii madax adaygii amarkii alle iyo kii nebiga ay diideen ayay cirib xumidiisii dhadhamiyeen. wa kaana wuxuuna ahaaday caaqibatu amrihaa amarkeeda ciribtiisa khusran mid khasaaro u saaxiiboo khasaaro badan ayuu markaa noqday.